السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو هويga barashada computer science barashada computerku waa muhiim cashirkan koowaad waxaynu ku baranaynaa computer science sida uu shaqeeyo computerku iyo waxyaabaha uu sahlo iyo saameynta uu ku leeyahay dunida maanta waxyaabaha la isticmaalo ee teknolojiyada dunidu waxa ay noqotay digital wax walba waxa lagu xiray internetka oo waxa la siiyay IP address teknolojiyadu ma aha wax indhasarcaad ah computer science-ka ayaa lagu bartaa sirta ka dambaysa computer science waa muhiim inaad barato kaliya kuma koobna inaad taqaano qaabka loo isticmaalo laptop-kaaga ama mobile-kaaga oo kaliya computer science waxa uu ku barayaa qaabka uu u shaqeeyo computerku iyo qaabka la iskugu xiro ujeedada aan ka leenahay barashada computer science-ku iyo faa'iidooyinka laga helo ayaa ah inaad noqoto shakhsi dunida ku soo kordhin kara waxyaabo cusub oo teknolojiyada kamid ah tusaale computer science-ka waxaad ku baran kartaa inaad noqon karto qof wax ku soo kordhiya dunida sida application iyo aalado la isticmaalo oo dunida faa'iidooyin badan ku soo kordhiya hadda waxaad isticmaalaysaa markaan isweydiino waa maxay computer science ama waa maxay computerku qaabku u shaqeeyaa waxaad ka dheehan kartaa oo aad ka arki kartaa aaladda aad isticmaalayso dunidan maanta ku noolnahay waxyaabaha la isticmaalaa waxa ay u badan yihiin digital maanta dunida meel kasta oo aad marto iyo meel walba oo aad marto waxaad si sahlan loo helayaa xogahaasi oo ku kaydsan computers ujeedada ka dambaysa in xoga la helo oo lacag la isku diro oo wax la register gareeyo oo caalamka ay aalado shaqeeyaan oo wax walba oo dunida yaala ay noqdaan wax meel qura wada yaalo waxa sahlay waa computer hadaba waxaynu halkan ku baran doonaa qaabka uu shaqeeyo computerku iyo qaabka la isku xiro computerada iyo qaabka loo sameeyo network iyo qaabka loo sameeyo programming application iyo waxyaabaha lamida iyo qaabka ay u shaqeeyaan systemkaas oo dhan iyo qaabka aad iskugu xiri lahayd satellite-ka iyo systemyadan iyo waxaan oo dhan say u shaqeeyaan iyo daatooyinkan waxa ka dambeeya iyo computeradu say iskugu xirmaan iyo qaabka internetka loo sameeyo ama computerada la iskugu keeno ama qaabka data loo sameeyo dunida meel walba aad ka soo gali karto waxa kale oo aynu ku baran doonaa talaabo kasta oo la qaadayo qaabkii iyo wixii loo marayay halka muhiimiyadda aanu ka leenahay waxa weeye inaanu helno dhalinyaro groups ah oo wax soo kordhin kara oo fikrada ku soo dhaca iyagu gacantooda ku sameyn kara oonan ahayn dad isticmaala application loo sameeyay iyo website-yo gacmo kale loogu sameeyay ama gacan kale ay sameysay oo ay noqdaan dad wax soo kordhiya oo application soo kordhin kara oo aalad soo kordhin kara oo wax dunida ku cusub Soomaali iyo caalamkaba soo kordhin kara hadaba waxaynu qaybtan koowaad aan kula wadaagi doonaa cashirkan ku xiga muuqaalkan ku xiga fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay siina share garee YouTube halka barta YouTube-ka kulana engineer Subaglana subscribe soo dheh siina share garee si aanu dhiirigelin u helno wixii su'aalaana waxaad noogu reebi kartaan commentiga